والله قراية Soomaaliyeed oo badan baan xiiseeyaa waxaa ka mid ah Ibrahim Yusuf Ahmed Haw Maxamed Daahir Afrax Axmed Faarax Cali Idaaja waxyaalahan ku xiiseeyana waxay tahay ayagoo af Soomaali hodana wax ku qora fariintoodana sidii ahayd u gudbiya oo ka dhacdhacsiinaya sheekooyinka aadka ii soo jiitay waxaa ka mid ahaa sheeko la yiraahdo Ayaan Daran oo nin la yiraahdo Hanti Wadaha qoray sheeko kaleeto la yiraahdo sheekadii aanadii nageeyay Ibrahim Yusuf Ahmed Hawd uu qoray wallahi caqabada ugu weyn ee isdhihi karo waxay haysataa qoraaga yar ee Soomaaliyeed waxa weeyaan akhriskiisa oo yar ama xogihii meelaha kala baahsan oo ka heli lahaa oo aad u yar waa kullayba qof kastaba caqabad baa hortaagan caqabadaas markuu ka gudbana in caalamkii adduunkii wixii oo dhan ay aqbalaan ay soo dhaweeyaan waa khasab insha Allah waan rajeynayaa inaan qoraan noqdo laakiin hadeertaan waxaan ku jiraa diyaarintii waan is diyaarinayaa hadeertaan wax baan aqrinayaa